waxaan kaa tuugaya naagta igee jahimanaa igee ilaahu soonka ilaahu ha igaasiina biyo raxmaano haddaa addoonkaada ahay subxaan allah mucjiso ayaa la tusay wiilkan oo lagu magacaaba cilmi isla markaana caan ka ahaa baraha bulshada gaar ahaan tiktoka ilaahay ayuu si bareera ugu jeesjeesay waxuuna ka codsaday iyadoo ramadaanka lagu jiro isagoo caafimaad qaba in ilaah nafta uu dhaafsiiyo taas ayaana keentay in xanuun degdeg ah uu ku soo boodo markaan qofka dhimanaysa oo dhimanaya ii sheegtiin baaba inaan sii ogaada xanuun may leedahay markaa la dhimanaya maxaa la maqlaa ii sheega walaalayaal waani tuugaas waxaan idinla wadaagi doonaa waxyaabaha ku kalifay wiilkan in ilaahay uu si bareera uga codsado geeri iyo weliba qaabka ilaahay markaasi xanuunka ugu soo tuuray muuqaalo xanuun badan oo qaarna laga soo duubay qaarna uu iska soo duubay balse tan si ay daliil iyo caddayn ugu noqoto dhalinyaro fara badan oo caadaystay ku xadgudubka diinta aflagaadada diimaha iyo alle in aad muuqaalkan sheer garaysaan oo meelo badan aad gaarsiisaan cid walbana ay ka digtoonaato marka ay aragta dhibaatada wiilkan sida degdega ay ugu dhacday waalid islaam saaxiibayaal meel walba aad joogtaan muuqaalkan waa muuqaal aad u xanuun badan muuqaalada noocan oo kalea inta badan kama hadlo laakiin waxaa muhiim ah in wax walba oo dhalinteena halis u keeni kara looga digo ayadoo la tusinayo mucjisaadka iyo camal tuska ilaahay uu muujinayo tusinayana kuwa xadgudbaya wiilkani waa wiil caana baraha bulshada laga yaqaano waa tiktoker inkastoo qaab masraxiyadiisa dad fara badan aysan jeclaysan maadaama uu yahay nin rag ah sidaa uu hadlayo haddana waxaa jirtay in loogu cimaamadayay inuu fiyuus ku raadinayo wax walbana meeshii loogu talagalay waxay dhaafeen markii uu ku soo bandhigay tiktokiisa gafaf waaweyn oo diinta iyo ilaahba u geysanayo taas oo bareer ah waxaana la tusay mucjiso aan idin tusiya muuqaal ka mida muuqaalada ilaahay si bareera uga codsanayo nafsada inuu dhaafsiiyo taas oo dad fara badan fajac ku ahayd waxaan kaa tuugaya naagta igee jahimanaa igee ilaahu soonka ilaahu ha igaasiina biyo raxmaano haddaa addoonkaada ahay ilaahu soonka ha igaasiina adiga addoommakaada markii muuqaalkan uu daabacay maalin khayr badan oo ka mid a maalmaha ramadaan maalin ilaahay cibaadada uu aqbalo maalin ilaahay wax walba oo laga tuuga laga rajeeyo ayaa wiilkani dad fara badan la yaabanaayeen waxa ku kalifay laakiin degdeg ayuu jawaab u helay waxaa xiga muuqaalkan xaaladda xanuunka badan uu ku jiro xanuunka meel walba ayuu ka hayaa sida lagu soo warramayo ma jirto meel u fiyow naqaska ayaa mararka qaar ku dhegaya dhimasho ayuuna qarka u saaran yahay balse hadda ayuu ku baraarugayaa tuugmada alle iyo in gaf weyn uu galay waxa uu codsanayaa uu ilaahay ka baryayaa iyo dadka Soomaaliyeedba cafis iyo dambi dhaaf laakiin xaaladdu way ku adag tahay dhalinyaro fara badan oo noocaana ayay tani cashar iyo daliil u tahay oo marka caafimaadka la qabo la niikinayo la boodboodayo isla markaana mararka qaar abuurista ilaah iyo diimaha wax laga sheegayo ayadoo la faanayo la qoslayo laakiin marka caafimaadka la waayo cid walba way jilcaysaa waana adduunyo iyo in koobane aakhira xanuun badan iyo qabri iyo cadaab ayaa ka sii dambayso dhibaatada wiilkan haysata waa wax gacantiisa uu ku kasbaday markaan qofka dhimanaysa oo dhimanaya ii sheegtiin baaba inaan sii ogaada xanuun may leedahay markaa la dhimanaya maxaa la maqlaa ii sheega walaalayaal waani tuugaas cilmi ku diga mayno dhihi mayno adigaa shalay gacantaada ku keensadee waxaan leenahay allaha ku caafiyo allaha ku badbaadiyo tana hanuun allaha kaaga dhigo camal tusna allaha uga dhigo dhalinyaro fara badan oo adiga kugu qaaba oo aan jeclayn maanta inaan muuqaaladooda soo qaato balse is yaqaanaan diimaha aflagaadada iyo faaxishana ka dhex wada baraha bulshada maalin walba waxa aad samayso waxay ku ekaan doonaan xayndaabkaaga laakiin waxa aad inta samayso muuqaal ka dhigto ogow noloshaada way ku daba socon doonaan dadkuna way daawan doonaan ilaahayna mar walba
muuqaalkaasi dadka ay daawanayaan dembi ayuu kaaga qori doonaa. sida laysku waafajiyey ayaa mucjisaa ee aan ku cimri qaadanno, muuqaalkan aan shargarayno oo meelo badan aan gaarsiino. caafimaad degdega iyo hanuun ayaan cilmi ilaah uga rajaynayaa. waad ku mahadsantihiin daawashadiina.